badbaxyo ka socday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo laga soo horjeeday dil askari cadaan ah uu geystay nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda ayaa isu bedelay rabshado iyo bilileqo loo geystay laba dukaan oo waaweyn oo ku yaala koonfurta magaaladaasi. Haddaba wariyaha iyaga VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa goor dhaweyd waraystay Liibaan Xuseen oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugnaa goobta ay bilileqada iyo rabshaduhu ka socdeen. maxamuud run ahaantii hadda waxaan taaganahay meesha u dhexaysa Targetka iyo Cafoodka dhexdooda wadadana ay tahay wadadii Lake Street iyo Hiawatha meesha iska jiraysay. meesha waxaa buuxiyo dhaafay zaxmo aad u badan gawaari aad u fara badan dadyow oo runtii banaanbaxay wadadii Lake Street booliiska halkii ay shalay ay ku banaanbaxayeen ay taagan yihiin qaarna ayaa waxa ay haatan ay bilaabatay in ay jibiyaan Targetkii halkaa ku yaalay. Targetkaasi gudihiisa ayaa loo dhacay wax alaala wixii ku jiray gawaarida ayaa lagu soo gursay. sidaan ula yaableen indhahayga hadda waxaa haya in Targetkii dadka goobjoogayaal gudaha galay ii sheegeen inuu Targetkii soo faraaqooyo wixii muhiimka ah oo dhan laga qaatay. Liban marka dadka wax beelqaysanaya ama dadkii banaanbaxayay ama waa dadkii banaanbaxayay dad aan ahayn oo kale. Mas'aada wixii dhan baa isku qasmay kuwii banaanbaxayay iyo kuwii meelaha taagnaa iyo kuwii xaafadaha u dhawaa degnaa intii oo dhan ayaa isku soo baxday. cid alaale ciddii meesha geli karta ayaa gasha waxay rabaan ayay ka soo qaadanayaan dukaankaasi. qof walbana waxbuu ka soo qaatay uu soo ordaa. qaar ayaad waxaad u jeedaaba gawaarida inay soo buuxsadeen oo aad gaarigooda xataa meel ay ka galaan aysan haysan si ay usoo biliqaysteen dukaanka Targetka. waa gartay Liban marka dadka wax biliqaysanayaad arkayso waxaad sheegtay inay baabuur alaabta ku raranayaan. ciidamadii nabadgelyada ee booliisku iyagu goobta kama dhawomayaan mase kama muuqdaanba. waa taan la yaabay maxamuud. ciidamada booliiska waxay hor taagan yihiin dadkii mudaaharaadayay ayay hor taagan yihiin wadadii leeg ayay taagan yihiin dhinaca booliiska. ilaa ay haatan booliis yimid ma laha. haatan waxaa indhahayga qabanayana in la jibiyey dukaankii kale oo ahaa Cafoodka oo ay dadku ay soo daadguraysanayaan ayaan u jeedaa Mascade. dukaankii marka kii Targetka wuxuu ahaa kii dharka iyo cunadaba lagu wada iibinaya kana cunto kaliya baa lagu iibiyaa oo Cafoodka loo yaqaan. marka dadku maxaad arkaysaa maxay qaadanayaan? waxaan u jeedaa indhahayga hadda haya dhalinyaro ay soo qaateen caagagii runtii caanaha ku jiray. qaar ayaa wata bokiso chips ah, qaar ayaa wata soodhooyin, qaar ayaa wata alaabta maaragtay maalmaha 4th of July-ga ay la tuuraan oo bularka ay sameeyaan. qaar ayaa soo qaatay. haatan indhahayga waxa ay hor taagan nin gaari weyn oo ku soo buuxsaday alaabta loo yaqaan dhaybarka caruurta loo xiro ayuu mataqaanaa gaarigiis ku soo buuxsaday. run ahaantii qofba intuu gaari kara ayuu mataqaanaa ka soo qabsanaya meeshani. dadka ayaa fara badan. haddaad dhinacan fiirisid qaar baa wax la soo orda. dhinacan haddaad fiirisid dadkuna run ahaantii qaar ba ayaa sii ordaa. waxay ka sii ordayaan lama yaqaan. haddaan fiiriyona booliis uma jeedo. waxaa dusheena taagan diyaarad helicopter ah. aan u malaynayo inay tahay Fox News ama Channel 5. waa gartay Liban marka waxaad sheegtay dadku inay isdaba cararayaan qolo wax qaadanayso qolo ay meesha ka ordayaan. dadka wax biliqaysanaya marka ma dadka madowga u badan yihiin ma cadaanka ma ku jiraan Soomaali ma ku jirtaa iyo isugu jiraan dadka wax biliqaysanaya? dadku wax biliqaysanaya madow kaliya ma aha, cadaankiyaa ku jira. Soomaali baan ka dhex arkayay kuwa ay wax la soo baxeen ay la soo ordayaan. hablo Soomaaliyadaan arkayay. waxaa kaloo aan arkayay wiilal Soomaaliyeed. marka ma aha oo kaliya madowga biliqada maanta kaliya ayaga ma aha. waa qof walba oo meesha jooga ayuu intuu galo dukaankaasi ay wuxuu rabo ka soo qaata. ma aha ma la dhihi karo madow kaliya. inta in shayda arkaysay waa qof walba ayaa mataqaanaa cadaanka ha ahaado qof walba ayaa mataqaanaa Mascade dukaankan maanta wax ka soo qaata. waa gartay laakiin dhinaca kale waxaan la socdaa dadku markii hore banaanbaxa si nabadgelyaha inay ku bilaabeen oo saldhigga booliska oo ku ag yaala Targetka ay ku banaanbaxayeen. waxaa muuqaalada ka arkaynaa in saldhigga booliska dushiisa ay ciidamadu saaran yihiin iyagoo tuuraya waxyaabaha loo yaqaano tear gaska ama dadka wax ka ilmaysiyo kale ay tuureen. marka
miyay jirtaa ama aad arkaysaa oo ay ku muuqanayaan dad ugu yaraan isku dayaya ama banaanbaxayaashii ahaadeen ama cid kale ahaatee dadka wax beelaqaysan inay hor joogsadaan oo beelaqada ka joojiyaan? maya masacde uma jeedo qof hor istaagaya leh waxaa naga dhiga uma jeedo haatan qof walbow siduu wax ku qaadan lahaa uu sii ordi lahaa ayuu falkeeda ku jiraa halkan haatan waxaan yar u dhowaaday targetka waxaa ii muuqataa in dad aad u fara badan halka ay kusii yaacayaan ma garanayo waxaa ka socda laakiin gudaha ayaa lagu sii ordayaa marna waxaad arkaysaa dadkiiyo soo yaacaya laakiin haatan waxaan u jeedaa inay ka dhammaatay alaabtii badneed meesha nin ayaa haatan soo wataa alaab yaryaroo sida kuwa carruurta geemamka ay ku ciyaaraan bokiso ayuu soo wataa indhahayga hadda ay hayaan oo cag maraya. waa tahay liban aad baad u mahadsan tahay waxaan ku rajaynaynaa amni iyo nabadgelyo adiga laftaadu inaad is-ilaaliso maadaama xaaladdu ay halis tahay oo ay dhici kartana in dadku ay dadka kale dhibaateeyaan marka waxaan ku leenahay digtoonow nabadgal saaxib. aad baad umahadsan tahay. hadalkaasina waxa uu u dambeeyey liibaan xuseen oo ah saxafi madax bannaan waxa uu waramayey wariyahayaga maxamuud mascade. mahadsanid cabdixaafid. waxaa wararku ay dhegeystayaal sheegayaan in rabshadihii ay kusii balladheen magaalada minneapolis ee dalka maraykanka. waxaan dib ugu noqonaynaa wariyaha v o eda gobolkaasi maxamuud mascade. maxamuud, bal wararkii ugu dambeeyey haddaad nasiist. sandheer aad baad umahadsan tahay mar kale. dibadbaxyadu waxaad moodaa marba marka ka dambaysa inay sii xoogaysanayaan weliba iyagoo rabshado kuwii hore kasii khatarsan ay dibadbaxayaashu ku kacayaan. waa hadda muuqanaysa in dukaan lagu gado qarabka baabuurta lagu sameeyo oo la yidhahdo Aurazone oo ku yaala deegaankii ay banaanbaxyadu ka socdeen uu ku yaalo saldhigga weyn ee booliiska in isagana haatan dab la qabadsiiyey oo uurada iyo qiiqa ay meeshu isqabsatay. marka waxaad moodaa dibadbaxayaasha carada ay ka caroodeen dilka loo geystay George Floyd ee magaalada Minneapolis in ay marba marka ka dambaysa ay sii tarayso dadkuna ay dalbanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo xiro dadkii ka dambeeyey ama ciidamadii ka dambeeyey booliiska ahaa dilka ninkan madowga ah ee gobolka Minnesota ee lagu dilay. marka arrintu waxaad moodaa inay sii kululaanayso. ciidamaduna waxay la arkayay iyagoo sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsanaya sidoo kalena rasaasta caaga ah ay dadka la dhacayeen oo weliba qaarkood la arkayay iyagoo ay dhaawacyo ka soo gaareen oo ay markaa telefishinada tusayeen. marka dabcan arrinku marba marka ka dambaysa uu kasii daraya. waan gartay maxamuud. saraakiisha magaalada iyo gobolku arrimahan ma ka hadleen gaar ahaan dilkii askarigii geystay dilka sida tooska u geystay jilibka kaga hayay ninkii bulshada madoobe maraykanka ee dhintay? aad iyo aad sandheere gudoomiyaha gobolka xereelayaha guud ee gobolka Minnesota Tim Walz iyo Keith Ellison labaduba way cambaareeyeen oo waxay ku tilmaameen falkani inuu ahaa fal waxaashnimo ah. sidoo kale duqa magaalada Minneapolis waxa uu ka dalbaday xereelayaha degmada Hannibin in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabto ninkii isagu ka dambeeyey dilka George Floyd ee la arkayay kaamirooyinkuna ay tusayeen isagoo koorta jilib kaga haya saasna ay ahayd arrinta keentay dhimashada George Floyd. marka waxa uu dalbaday weliba sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo xiro. sidoo kalena waxaa jirtay maalintii talaadada ahayd in 4 ka mida askartii ninkan soo xiraysay gabi ahaantoodba ee shaqada laga eriyey. waxa uun hadda la sugaaba waa tallaabooyinka tan xigta ay qaadan doonaan ciidamada nabadgelyada ee magaalada Minneapolis iyo goorta ay soo xiri doonaan xeer ilaalinta gobolku ninkan uu yiri duqa magaaladu hala soo qabto oo waa in cadaaladda la hor keeno. laakiinse dadka magaalada Minneapolis banaanbaxyada ay dhigayaan ee aadka u faraha badan waxa ay dalbanayaan ugu muhiimsan waxay tahay sandheerow in shakhsiyaadkaas iyo booliiskaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xiro loo maxkamadeeyo isla markaasina cadaaladda loo keeno. waxaana ay caradani ka dhalanaysaa caro fara badan oo horay ay bulshadu ay u qarsanayeen maadaama niman hore oo madow ah gobolkan loo dilay oo ciidamada boolisku ay dileen isla markaasina nimankii booliiska ahaa ee dilkaa geystay aanay dhicin ilaa iyo hadda qof loo soo xiray oo arrintaasi xabsi loo dhigay. marka
kii ugu dambeeyey oo kale haddaynu tusaale soo qaadano Castilla oo magaalada St Paul isagoo dhex maraya oo weliba haweeney xaaskiisa oo la socotay ay muuqaalkiisa si toos u baahinaysa iyadoo la dilay askarigii loo soo qabtay oo loo xiray markii la maxkamadeeyey xeerbeegsidu waxa ay sheegtay inaan wax dambiya lagu haynin isagana waa la sii daayay marka waxaad moodaa dadka madowga ee gobolka Minnesota cara isgaartay oo lafaha gaartay in ay hadda hal mar isla burqatay islamarkaasina ay gobolka dhibaato fara badan haatan u horseedayso oo marba marka ka dambaysa dibadbaxyadu ay sii tarayaan islamarkaasina ay keeni karto in khasaare hadda mid ka jira mid ka badan uu dhaco. waan gartay wixii warar ee dhegeystayaal ka soo kordhana idaacadaha soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. Maxamuud aad baad u mahadsantahay. Adigaa mudan Sandheere.